Salaamu calaykum. Ninkan waa nin dhalinyaro oo muslim ah. Waxa uu jabsaday in ka badan 200 oo bangi oo reer galbeedku leeyihiin. Waxa uuna hawada ka saaray ku dhawaad 800 oo website oo laga leeyahay Faransiiska. Waxa uuna ka dhacay reer galbeedka hanti lagu qiyaasay ku dhawaad 4 bilyan kadibna waxa uu qaybiyay hay'adaha khayriga ah ee ka jira wadanka Falastiin iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin. Ninka aan ka hadlayno waa Hamza bin Dulaaj. Haddaba waa kuwa Hamza bin Dulaaj sida uu suurta gashay inuu khasaaraha baaxaddaas la gaarsiiyo Yahuudda iyo reer galbeedka. Inta aan bilaabin waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like saarto si uu u gaaro dad fara badan. Hackerkii reer Jazaa'ir Hamza bin Dulaaj waxa uu dhashay sanadkii 1998. waxa uuna ka qalin jabshay jaamacadda Babu Zawaar ee Culuumta iyo Tiknoolajiyadda ee Jazaa'ir sanadkii 2008. waxa uuna ku soo biiray caalamka hackeriska isaga oo ka yar 20 sano. Hamza bin Dulaaj waxa la sheegay in uu u dhacay baro iyo shirkado ay leeyihiin Israa'iil. waxa uuna xogo iyo siro badan oo ay leeyihiin ciidanka Yahuuddu u dusiyay kooxaha Falastiiniyiinta. sidoo kale ninkan waxa uu jabsaday in ka badan 200 oo bangi oo ku yaala Yurub iyo Mareykanka. waxa uuna ka dhacay ku dhawaad 4 bilyan oo dollar. sida la soo wariyay Hamza bin Dulaaj ayaa in badan oo kamid ah hantidaas gaarsiiyay hay'adaha khayriga ah ee ka dhisan wadanka Falastiin iyo dad badan oo masaakiin ah oo ku nool wadamada Afrika. maadaama Faransiisku uu gumeystay Jazaa'ir dad badan oo ku laayay, Hamza bin Dulaaj waxa uu weerar ku qaaday baraha muhiimka ah ee wadanka Faransiiska. waxa uu hawada ka saaray in ka badan 800 oo barood. waxa uu sidoo kale jabsaday 8 bangi oo laga leeyahay wadankaasi, taas oo ku sababtay khasaare maaliyadeed oo aad u xooggan. Hamza bin Dulaaj waxa uu jabsaday safaarado badan oo ku yaala Yurub. waxa uuna fiisooyin bilaash ah u qaybiyay saaxiibadiisa ku nool Jazaa'ir si ay u galaan Yurub. ninkan inta uu geysanay weeraradaas reer galbeedku wax ay ku weerarsanayeen cidda soo weerartay iyo halka uu ku sugan tahay, maadaama uu qariyay dhammaan wada kasta oo ay suuragal tahay in lagu ogaado halka uu ku sugan yahay. sheekada la yaab kale ee laga soo wariyay hackerkan reer Jazaa'ir ayaa ah inuu jabsaday ama birtilmaameedsaday website-yada caanka ah ee lagu soo bandhigo aflaamta anshaxumada ah. waxa uuna la wareegay ku dhawaad 4000 oo ah mareegaha lagu soo bandhigo aflaamtan. waxa uuna geliyay bedelka aflaamtii codka qaariga caanka ah ee Cabdibaasid Cabdisamed. Hamza bin Dulaaj soo ku jooga dalxiis wadanka Thailand ayaa xogtiisa waxa helay FBI-da iyo booliska Interpol oo iskaashanaya kadib markii ay ka soo tixraaceen bangi oo lacag kala baxayay. waxaana muuqaalkiisa laga helay kaamirooyinka qarsoon, taas oo sahashay in lagu qabto garoonka diyaaradaha ee Bangkok. waxaana loo qaaday gobolka Georgia ee Mareykanka. ka hor inta aan maxkamad la saarin ayay sirdoonka Yahuudda iyo kan Mareykanku u soo bandhigeen fursad ah in uu la shaqeeyo iyagoo u sameeyay ballanqaadyo badan. laakiin Hamza bin Dulaaj codsigaas waxa uu daruura gaashaanka, taas oo sababtay in sanadkii 2013 lagu xukumo 15 sano oo xarig ah iyadoo lagu eedeeyay barcadnimo. laakiin muslimiin badan ayaa u arkaa in uu yahay geesi nidaamka gaalada waxyeeleeyay. si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa Hamza bin Dulaaj inuu xabsiga ka soo baxo sanadka 2026. waxaana cabsi weyn laga qabaa in sirdoonka Yahuuddu ay u maleegaan dhagar ay ku khaarijinayaan, maadaama ay cabsi weyn ka qabaan ninkan. muuqaalkeennii aan hadlaynay hackerkii reer Jazaa'ir ee Hamza bin Dulaaj waxa uu ku ogyahay intaan.